سائلكنا وحولي السلام عليكم شيخو دينتم محي كقبتا هدي قف وهور دينتي أن سور كيس كفا فيه براها إنترنت كا سور كاسنا كيد أهان ما هي سنكرا أصلهان سور كا أصل كيس مبنانا قاضي ديسا يفافين تيسدونا في الأصل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآدو فربضان باب ميشا كساروري أو كم إذا حديثك في الصحيحين من حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ روحي صوره ما لنت قيامة وحا لغو كلفي إنو نفق ليه من القلين كرو رواية أبو داود وحي قدرتي انت وقلين لا يهين ولو عذابي عذاب بوجري dadka aakhiro ugu cadaab adag baa kamida dadka wax sawiray kamid yaa kamid dadka cadaabka ugu adag mari doona dadka wax sawira kamid asalka sawirku marka waa sida waxa laga soo reebaa xaalado laga maarmi waayay waxa looga maarmi waayay tacliin waxa looga maarmi waayay dacwo waxa looga maarmi waayay tarbiyo waxa looga maarmi waayay documenti waxa looga maarmi waayay baadhis dambi Soomaaliya waxyaalaha noocaas oo kala wixii looga maarmi waayo la baas haysigooda iyo samayntooda iyo faafintooda hadii baahi keento dhib male hadayna baahi keenaysa jirinna qaadiduna waa khalad faafintuna waa khalad hadayna wax baahi oo keenaysa jir hadii duruuf ama maslaxa muayyan ku xidhan tahayna markaasi wax weeye la baasa wallahu a'lam gabadhan waxay leedahay aniga oo sheekh 12 sano jira ayuu dhiig ugu dhacay soonkii ugu horeeyayna yar baan ka soomay marka soonkaas waajib uu ugu yahay inaan gudo alxamdulillah gabadha dhiigga hadduu ku dhaco xukunkii dhiig iyo qaangaarhka wuxuu qaataa ugu yaraan markay 9 sano u dhammaato wixii 9 sano ka yar dhiiggaasi dhiig xukun sharciga caado ah oo lagu qaangaaro ma noqdo haddii 9 sano u dhammaato wixii ka dambeeya uu dhiiggii ku dhaco qofkaasi way qaangaadhay salaad iyo soonkiina waajib bay ku noqdeen intaa kadib ama ka horeeya ha u noqdo ama kii u dambeeyay ha noqdo wixii soom ahaaye aanay soomin ee ka tegay qadaheeda waa lagu leeyahay waqtiga dheer aynan qadayna waxaa laga rabaa ilaahay dambi dhaaf inay ka weydiisato daahintii oo nooc dayacaad oo waajibkii lala daahaya kadibna intii u dhimanayd inay qadaysaa lagu leeyahay oo waajiba barakallahu fiikum